Rasaas xooggan iyo dagaal toos ah ayaa maalintii saddexaad waxa uu ka soconaya degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Galmudug oo iskaabaya iyo maleeshiya ka tirsan ururka Ahlusunna wal Jamaaca ee uu hogaamiyay wadaadka Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Dagaalka ayaa lagu warramayaa in hadda uu ka soconayo waqooyiga magaalada Gurceel, halkaas oo fariisin weyn ay ku leeyihiin ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca ee uu hogaamiyay Sheekh Shaakir. Agagaarka jaamacadaha ayuu ka soconaya dagaalka ugu xooggan ee xilligan Ahlusunna wal Jamaaca iyo ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug dhex maraya. Wararka ayaa waxa ay xaqiijinayaan in inta badan magaalada Gurceel gobolka Galgaduud ay la wareegeen shalay ilaa xalay fiidkii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo isku fiiriyay inta badan magaalada, gaar ahaan goobaha maamulka sida saldhigga booliska, xarunta maamulka degmada iyo goobo kale oo muhiim ah. Ciidamada Ahlusunna ayaa la tilmaamay inay isugu soo aruureen waqooyiga magaalada, gaar ahaan halka loo yaqaano jaamacadaha oo ah saldhigga ugu weyn ee hadda ay ka dagaalamayaan ciidamada Ahlusunna ee dagaalka kula jira kuwa dowladda iyo kuwa maamulka Galmudug. Ciidamada Ahlusunna ayaa la aaminsan yahay in halkaas ay ka qoteen fariisimo iyo sidoo kale dhufaysyo waaweyn oo ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug u suuragelin la in ay kala wareegaan halka ay ku sugan yihiin. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac baaxad leh ayaa ka dhashay dagaaladii saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ciidamada dowladda, kuwa Ahlusunna iyo Galmudug ku dhex marayay magaalada Gurceel. Wararku waxay tilmaamayaan in ilaa hadda aysan jirin cid xaqiijin karta khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalka, balse dad goobjoogayaal ah iyo ilo loo qaateena ayaa xaqiijinaya in khasaare lixaad leh oo kala gaaray labada dhinac iyo dad rayid ah uu ka dhashay dagaalkaas, sidoo kalena uu dagaalku sababay burbur hantiyeed oo soo gaaray goobo ganacsi, isbitaallo iyo xarumo waxbarasho iyo sidoo kale guryo dad rayid ay lahaayeen oo ku yaala magaalada Gurceel. Dadka ayaa tilmaamaya in dagaalka Gurceel uu yahay kii ugu khasaaraha badnaa ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada maamulka Galmudug. Magaalada ayaa weli waxaa la tilmaamayaa inay yaalaan dad qaba dhaawacyo kala duwan, kuwaas oo ilaa hadda loo heli la'yahay fursad ah in loo qaado goobo caafimaad ama magaalada laga bixiyo.